daawadayaal ku soo dhawaada mar kale wararkeennii Warshiil TV. Qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah Puntland oo bilowday olole ka dhana Qatar, shaacisana baaritaanada dilkii Formosa. Dowladda Qatar oo Kenya kula heshiisay sahaminta shidaalka badda. Soomaaliya iyo Talyaaniga oo xoojinaya xiriirka dhinaca militariga. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland oo dhambaal hambalyo u diray ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ingiriiska iyo dalka Turkiga oo wacad ku maray inuu ka aargoosan doono dalka Mareykanka. Kuwaas waa qodobada warkaan idinku hayna haddana ku soo dhawaada faahfaahintooda. Dowladda Puntland oo saxaafadeed soo saartay ayaa ku dhawaaqday inay la shaqeynayso cid kasta oo baaritaan ku sameynaysa warbixinadii wargeyska New York Times. Maqaalkaasi ayaa lagu sheegay in qaraxyo iyo dilka dhacay bishii May ee sanadkani ay ku lug lahaayeen dowladda Qatar loona dan lahaa dalka Imaaraadka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Qatar ayaa beeniyay in Dooxa ay wax door ah ku lahayd dhacdooyinkaasi oo ay sheegatay kooxda la magac baxday dowladda Islaamka ah. Weeraradaasi waxay wiiqayaan xasiloonida horumarinta iyo bixinta adeegyada bulshada ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay madaxtooyada Puntland. Salaasadii shalay madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka dalbaday baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inay arintani ku sameeyaan baaritaan. Hayeeshee xukuumadda federaalka ayaa waxa ay meesha ka saartay inay doonayso inay wax baaritaan ah ku sameyso arintani. Waxay si cadeysay in baarlamaanku uu madax bannaan yahay shaqadaasi. Dowladda Puntland waxa ay si buuxda ula shaqeynaysaa geedi socod kasta oo baaritaan oo lagu sameynayo. Waxaanay dhawaan baahinaysaa faahfaahinta baaritaanada gaarka ee dilka maamulihii B&O ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Garowe. Ugu dambeyntiina dowladda Puntland ayaa carabka ku adkaysay inay u taagan tahay xoojinta Soomaaliya oo wada jira, dimuqraadi ah isla markaana federaal ah oo nabadna kula nool deriskeeda iyo caalamka inta kale. Dowladda Qatar ayaa saami badan ka iibsatay 2 shirkadood oo sahamin shidaal ka wada xeebaha dalka Kenya. Waxaana Qatar doonaysaa inay kaalin muuqata ka ciyaarto hawlaha sahaminta shidaalka ee Kenya. Shirkadda Qatar Petroleum oo ay maamusho dowladda dalkaasi ayaa shaacisay in heshiis la gashay shirkadda ENI iyo Total si ay saami 25% ugu yeelato sahaminta 3 baloog oo ku yaala xeebaha dalka Kenya. Heshiiskana waxaa dowladda Qatar u saxeexay wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta ee Qatar ahna madaxweynaha shirkadda Qatar Petroleum. Waxaan u sheegay wasiirku inay aad ugu faraxsan yihiin saamiga ay ka iibsadeen shirkadaha Total. Dowladda Qatar oo kamid ah dowladaha sida weyn u taageeray dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda sida ay u waajahayso muranka dhinaca badda ee ka dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa isla markaana loo sameyn lahaa xiriir adag oo dhaxmara labada dowladood gaar ahaanna xoogga lagu saariyo dhinaca ciidamada. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Sarreeye Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga kula kulmay taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga ee Talyaaniga General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa madaxda ciidamada dalka Talyaaniga kala hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga iyo sidii sare loogu qaadi lahaa tababarada ay Talyaanigu siiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyadoo Talyaaniguna uu ballan qaaday inay gacan ka geysanayaan sidii Soomaaliya mar kale u yeelan lahayd ciidan xoog badan. Talyaaniga ayaa ka mid ah dowladaha taageera dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana Talyaaniga magaalada Muqdisho ka jooga saraakiil iyo ciidamo gacan siiya ciidamada militariga ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal hambalyo u diray ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ingiriiska. Madaxweyne Farmaajo ayaa fariin uu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka waxa uu ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ingiriiska Boris Johnson. Madaxweyne Farmaajo ayaa fariintiisa ku yiri hambalyo ayaan u dirayaa Boris Johnson oo loo doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee UK. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo qoraalkiisa sii wata ayaa intaas si raaciyay waxaan ku rajeynayaa inaad wanaag ku bilowdo hogaaminta Downing Street. Waxaanu sugaynaa inaanu kula shaqeyno si aynu u gaarno mustaqbal weyn oo aan u rajeynayno wadamadeena. Dhanka kalena madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna waxa uu hambalyo u diray ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ingiriiska Boris Johnson isagoo ugu hambalyeeyay xilkaasi cusub ee loo doortay isla markaana u rajeeyay guul. Waxaanu ku tilmaamay madaxweyne Muuse Biixi hogaamiyaha cusub ee dalka Ingiriiska saaxiib ay leedahay Somaliland. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga
ayaa waxa uu wacad ku maray inuu ka argoosan doono dalka Mareykanka haddii ay cunaqabateyn u saaraan soo iibsashada hubka difaaca gantaalaha Ruushka ee S-400. haddii uu Mareykanku la soo baxo mowqif cadowtinimo ah oo nagu wajahan, waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin argudasho ah sida aan hore u sheegnay. tani ma aha hanjabaad ama ma aha ciyaar, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu. isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay oo uu yiri ma nihiin dal madaxa u raaricin doona kuwa noo muujinaya cadaawada ka dhanka ah Turkiga, oo uu sheegay in Turkigu aysan marnaba raalli ka noqon doonin in loo sheego wixii ay sameyn lahaayeen amaba loo yeeriyo. Mareykanka ayaa hore ugu hanjabay Turkiga inay ka saari doonaan ka qaybgalka barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35 haddii ay soo iibsadaan gantaalaha S-400.